munaasabad si heersare loo soo agaasimo xilka kula kala wareegayaan gudoomiyihii hore ee degmada Togwajale Aadan Muuse Cilmi Aadan Shiine iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay degmadaasi Togwajale mudane Xaashi Maxamuud Cabdi ayaa ka qabsoontay hotel Geelle ee degmadaasi Togwajale munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolkaasi Gabile mudane Xamse Maxamed Cabdi maayirka degmada Gabile mudane Maxamed Aamin Cumar Cabdi iyo gudiyada ganacsatada iyo horumarinta ee degmadaasi Togwajale munaasabadan xilka ay kula kala wareegayeen labada mas'uul ayaa dhamaantoodba waxa kamid ah hadaladoodii maayirkii hore iyo maayirka dambe waa kala dawlo way fiican tahay waxa se ku daray laakiin waxa weeyaan kala wareejintani waxay u baahan tahay in loo miidaan tayo oo magaranaysa qorshe loo sameeyo oo Wajale maxaa keenaya in la yiraahdo isbeddelkan faraha badan waxa weeyaan meesha haddii ay loolano noqoto ay noqoto meel lagu loolamo waxtarka iyo horumarku uu yaraanaya waa run xilku waa qor isku dhiib shalay baan kala wareegay walaalkay Cabdisleebaan markii sii horeysay ayaan kala wareegay walaalkay Xaashi oo maanta suuna rumaantii igala wareegaya xilka maanta runaantii waxay tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan runaantii xilkan maayirnimahii waxyaalihii ii suurta galay ee ii qabsamay iyo waxyaalaha maanta qabyada ahna كل حلقة أنا كشيء جدونا سنة كواحد قبضوا من وضد ما أنت عدوين ما أنت حلقة اللي هو رجيني دمان من الوجهة نقلها اللي لهذين كنت أبي واحد سوى قبض كان جوه ريوين كابل عمتو وضد أص واحد كبر مع أنت يقبضوا ودوتين عدة دولار كركاشة كان عنده كركاشة وسعر المالية ده بس يسمى عبد هذا الروتي عن آدم مع اليوميدنا يلا طيب قاعدة سيدي التجمع تبغى تعلوه اللي تقولي مرتدى وما أنت مدحونين جمهورية الصومال عندنا أحمد محمد حميد سيرايو مال وكل مستوى واحد نوصل توكله إن حفيز ككاستم يو سعودال كميجريشن كا والروتي سونا أدوتي من مانت السعودال يجي أو يقولون مانت مال في عن إنه مريا وأنا دويدين مركي أنا مد حلقة إبرية روحانتي واحد كلون آد وها وكلا دكتورك ووجهله مانت روتي إنه لا دكتور دكتورك عاصمة هربيسة حلقة لا ضمته إلى هنا وفضوا يا حلقة سنة وودي يرانا haddii say soo raadiyay awoodaan lahayd wax ku qabanayna kolka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xilkaasi ii fududeeyo dad fara badan baa hambalya lahaa cilku hambalya male waa culays fara badan oo qofka bini'aadanka dusha ka fulay weeyaan kolka xilku wuxuu u baahan yahay in la isugu duceeyo igu soo duceeya ayaan ilaahay Wajale inaan intii hore aan idin qabtay in ka fara badan ba aan idin qabano sharafta ay uga hadleen hadii inta aan dhaafo waxa kale oo iyadana si gaar ah u soo dhaweynaya gudoomiyaha cusub ee degmada waxaan iyadana si sharaf iyo maamuus leh isagana u sii hambalyeynayna gudoomiyahayii hore Aadan Muuse Cilmi inta kadib walaalayaal ama gudoomiyaha cusub gudoomiye waxaan halkan warbixin yar oo kooban ayaan doonayay oo dhowr kelmadood oo inaan halka ka gudbino ka bulsho ahaan iyo ka maamul ahaanba waxa weeye muddo kooban oo nafad bilood gaarin ayaan joognay degmada muddada aan joognay waxyaabihii loo qabsoomay kow waxa ka mid ah oo ilaahay noo suura geliyay inaan kawaankii degmada Wajale aan kawaan god cusub oo 13 jooga aan qodnay wuxuu baynu u joognaa inaynu sagootino gudoomiyaha hore degmada Wajale Aadan Shiine isla markaana aynu soo dhaweyno gudoomiyaha cusub ee degmada Xaashi runtii haddaan ku horeeyo gudoomiyaha Aadan Shiine waxaan uga mahad celinaynaa degmada intuu ka shaqeeyay mas'uulka ka ahaa iyo shaqadii wanaagsaneed ee horumarku qabtay
ilaahayna miisaanka xasanaadka ha ugu daro runtii wax qabad la taaban karo oo aan soo karo mashruucii ugu weynaaye degmo ahaan ay wajaale qabsato 2 kiiloomitir oo aynu waxtarkeedana aynu dareenno sumcad xumana gobol ahaan nabar inagu ahayd maystirtay waxaan leenahay ilaahay ka abaal mariyo intii kale wanaageed qabatay ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuugu daro xaashina waynu u ducaynaynaa in hoos la isku tashado dadweyniyo maamulba madax wanaagsan oo qaanuun aad u wanaagsan oo dhalinyaro in hoos la isku tashado wixii danta guud laga wada shaqeeyo waad ogtihiinoo inaynu focuska sare u qaadnaa wanaagsan London shir baa ka socda loo qabtay Soomaaliya Soomaaliland waa laga reebay halkaa waxaa ka muuqata cabaadka ka baxaya oo la weynti halkaa waxaa ka muuqata dee Soomaaliland maanta meeqaamka ay taagan tahay iyo in go'aansitaankeedii la aqoonsaday soo maaha la bayaamiyey ama la sheegay ujeedadeeda oo ah inaynu sagootino gudoomiyihii hore degmada Wajaale Aadan Shiine soo dhaweyno una ducayno gudoomiyaha cusub xaashi waxa leeyahay gudoomiyihii hore Aadan runtii waanu kaaga mahadnaqaynaa intii aad joogtay degmada Wajaale wax qabadkii muuqday ee aad qabatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa kaaga baryaynaa inuu ajri xasanaadkaas siiyo marka runtii aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa wada shaqayntii aynu lahayn intii aad joogtay ee aad gobolka la lahayd wax qabadkii aad sheegtay ee aad tirisay faraha badnayd yahay ilaahay waxaan kaaga baryaynaa mansabka mid ka khayr badan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku geeyo gudoomiyaha cusub xaashi waynu soo dhaweynaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ku asturo xilka aynu ognahay gobolkeena Gabiley waxa inagu soo fool leh kaar qaadashadii shaqada inagu soo fool leh ee madaxweynaha oo runtii dadka reer Wajaale 100% aan isleeyahay waa xisbiga kulmiye waxaynu ugu hiilin doonaa musharaxiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Mujaahid Muuse Biixi Cabdi Khadar Cabdi Cabdilaahi warbaahinta madaxa bannaan degmada Wajaale